ololaha nadaafadeed ee uu soo qaban qaabiyey maamulka gobolka Banaadir dhammaan waaxihiisa kala duwan ayaa ku sugnaa goobta waaxda arrimaha bulshada ayaana horkacaysay iyadoo laga fuliyay madxafka qaranka oo dhawaan laga saaray dad ku noolaa muddadii burburka dalka uu ku jiray waxaana ololaha nadaafadeed dadka ka shaqeynayay kala qaybgalayay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada oo hormuud u ahayd shaqada socotay shaqaalaha gobolka Banaadir ayaa ka howlgalayay dhammaan qaybaha iyo qolalka madxafka si ay u nadiifiyaan Maryan Aadan Amiin isuduwaha shaqada isxilqaan ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa u mahad celiyay madaxda iyo shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir ee ka shaqeynayay madxafka qaranka waxa shaqadii isxilqaan ee cirka gashay ka soo qayb galay gobolka Banaadir oo udbihiisa iyo dhigihiisa wato aad iyo aad ay u mahadsan yihiin tirakoobka markii ugu dambeysay kun iyo hay u maraayay ma aqaan waxaan ku sifeeyay maanta shucuurtayda gudoomiyaha aad u mahadsan yahay gudoomiye ku-xigeenka Basma Caamir Shikeeti gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegtay in ololaha nadaafadeed ee gobolku ka sameeyo madxafka qaranka kaliya shaqadoodu ay soo ka ekeen ee waaxda arrimaha bulshadu ay dib u dhiska madxafka u diyaarisay 100 kiish oo shamiinta ah maamulka gobolka Banaadir oo hogaaminayo gudoomiye Yariiso waxaan diyaar u nahay wax walba wadanka loogu horumarinayo isxilqaan waaxda arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir waxaan kaloo aan ugu soo deeqnay 100 kiish oo shamiinta ah oo ugu talagalnay in madxafka qaranka dhismihiisa lagu bilaabo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa mar kale ku celiyay baaqi ahaa in dhismayaasha danta guud dadka ku dhaqanay ay ka wada guuraan si dib loogu soo celiyo bilicdii iyo shaqooyinkii danta guud ee ay hore u qaban jireen waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo shacabkii deganaa madxafka oo muddadii aan u qabanay inay uga guuraan ku guuray si isxilqaannimo ah oo sharaf ku jirtana runtii aan buuqna sameynin oo halkaas u baneeyay ayagana waxaan leenahay qayb waxa ka tiim barnaamijka isxilqaan aad iyo aad ka mahad celinaynaa sidoo kale dhammaan goobaha danta guud waxaan codsanaynaa dadka degan inay sida ugu dhaqsiyaha badan u baneeyaan si madxafka qaranka waxa uu ka mid ahaa goobaha dadka danta yar ay ku noolaayeen dhawaan ayaana maamulka gobolka Banaadir warqad wareegta ah oo ka soo baxday ay kaga guureen Sugaal Macalin Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.